kadibse wuxuu bilaabay asaga oo firaashka aan ku wada jiifno qayb kamida ku jiifo in halkaasi oo kula hadlo qof kale dumar ah waliba uu ku yiraahdo erayadii aniga aan xaq u lahaa oo halkaasi ku yiraahdo waliba oo hasaawo ah aan arkayo waan ka dhaga fureysanayay oo hadalladaasi markaan u adkeysan waayana inta baxo ayaan waxaan tigi jiray fadhiga oo halkaas ayaan ku soo ooyin jiray oo intii markay iga soo dhamaata wajiga ayaan iska soo dhaqi jiray aniga oo dareensiinaynin dhibaatada aan dareemayo amba dhaawac ay gaarayo erayadii markaan xaq u lahaa oo qof dumar ah oo aan xalaashiis ahayn uu ku leeyahay waan iska aamusi jiray intaas waxaan ka baqaya kaliya in aan eray iraahdo anigana jawaabteeda ay iga noqoto furiin halkii ayaan ku aamusayay waxaan ahaa qof uur leh oo uurkeeduna marayo 4 bilood waxaan isri hooyada ma noolo aabahana ma noolo cid aad ciirsanaysana ma lahan saddex u badan hore ayaad u wadatay haddii aad maanta qayla samaysane waxay naqanaysaa in ninka uu ku furo waxaan dareemay tiri nin go'aan soo gaaray inuu yahay kaliya iga baarbaarayo inaan mar kaliya xanaaqo halkaasna oo ku helo daldalool aan ku wada buuqno halkaasna oo igu dalaaqo waxaan soo go'aansaday in aan adkaysto samro ilaahayna tala saarto mar allaala markuu waayay meel uu iga soo maro iyo qaab uu xanaaqayga u kiciyane uu iga aamusay waxaa dhacday maalmaha ka mid ah anigoo quraac siiyey oo halkaas iga dhaqaaqay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا إذن سلامة يا ملكسته أو دنيا دافع هذا أنك داون إنسان يسكستو موقعنا يمقل كينا به إذن سوغاريو هلك أنك داون إنسان هو channel كاني لاكي فاميلي هذا أنك صبته يسود أو هسمرتين channel كان سبسكرايب نوصار هذا أصحاب تاني كم يتهاي نلسي جوكتين سدو كله وحنقولين هيسود أو هسمرتين أنت هذا نوجود قلنا داوشة موقع كان ولي بس حش مدي كله هنتهاي وحنكاغ قصاننا inaad muuqaalka noo la gareyso Ramadan Kareem kullu caam wa antum bi khair meel kasta oo dunida daafaheeda aad ka joogtaan ilaahay waxaan ka baryayaa aniga iyo adiga i daawanayo in dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan in uu ilaahay nagu gaarsiiyo bisha barakeysan oo ay ka dhiman tahay maalmo farax ku tirisa cimri iyo caafimaad ilaahayna naga dhigo kuwii ka faa'iideysta bisha barakeysan ee Ramadan qeyrkeeda ilaahayna naga dhigo uu loogu dambiga dhaafo jannada loogu bishaaray muuqaalka aan jecelahay waqti xaadirka inaan halkaan idin kula wadaago ayaa wuxuu yahay maanta waxa ay soo booqatay mid kamid ah gabdhaheena Soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada leh gabadhaas oo u soo booqatay dukaanka naga ee Iles Designer gabadhaas ayaa soo waxay iga sheekaysay qiso naxdin iyo argagax iyo murugo intaba xambaarsan waxa ay tiri anigoo da'yar waliba sabi ah ayaa waxa geeriyooday hooyaday iyo aabahay kadibse waxa soo koriyay ina soo barbaariyay ayeeday markii aan soo hana qaaday oo aan qaangaarin ayeeday waxay go'aansatay in ay guuriso oo aan noqdo marwo sharaf leh oo guri degan oo la qabo halkii ayaan saamarkeedii ku qaatay maadaama ay ayeeday igu soo tiiri taabeshay ina soo korisay sidaas ayaan go'aankeedii ku qaatay oo waxaan noqday marwo la qabo ninka ayada ay soo doortay guri ayaan degay ilaahay wuxuu halkaas igu siiyay 3 ubad ah kadibse waxa dhacday ninkii i qabay in isbedel aad u badan oo ku yimaado in dhaga hadal oo igu yiraahdo inuu ijirdilo inuu si xun ila dhaqmo inuu dhibaato joogteen ah oo ii geysto kadibse waxaan go'aansaday inaan ku dacweeyo walaalkay marar badan ayuu xaajadeeni galay asaga oo rabay inuu gurigeeni si isnaado laakiin ballanqaadyada uu sameeyay mar walba ninkaani waxay naqanayeen hal bacaad lagu lisay oo waxay naqanayeen mid balantii mar walba hareer mara halkii ayaa ugu dambeyn madaxayga laga qaaday oo halkii ayaan ku kala tagnay ubadkaygiisa aniga ayaa halkaasi ku qaatay muddo 10 sano ah waxaan ahaa garoob ubadkeedii korsata oo geed dheer iyo geed gaaban u fuusha sidii noloshoodii wax uga bedeli lahayd haday tahay xaq waxbarasho iyo haday tahay xaq nololba 10 sano kadib waxaa yimid mid kamid ah ragga Soomaaliyeed oo iga dalbaday xiriir asaga oo go'aansaday in uu i guursado laakiin waan ka biyadiiday waliba in muddo ah ayuu idaba joogay oo aan lahaa walaalow gayaankayga ayaa telaysaa waxaan ahay hooyo caruurteedii korsata walaalow adigana inay dhibaatayso ma rabo sidaas daraadeed i ammaan geli si aan caruurteedii aan u korsado
nin wuxuu u yahay waan soo arkay ninkiisa wuxuu igu yiri raggu ma ahan kuwa siman waxaan kuu ballan qaadayaa inta cimrigaaga ka hartay inaad farxad ku noolaato ubadkaad adiga dhashayna waa ubadkeyga wax kasta oo aad u baahan tahayna diyaar waxaan ku ahay inaan kuu sameeyo kaliya waxaan u baahanahay inaad noqoto marwadeyda xalaasha ah in muddo ah markii aan ka biyo diiday oo asagana idaba joogo kadibse halkaa waxaa ka qornaa calafkii waxaan ka aqbalay codsiyadiisa waxaan kaliya ka codsaday in dhibaatadii ninkii hore uu ii geystay mid lamida inuusan ii geysan oo ilmada dhabanadeyda aysan ka quban waliba asaga dartii haddii dhibaato noocaas oo kale ii geysan doonana hadda uu iskii ammaan geliyo wuxuu ii ballan qaaday inta aan noolahay inuu ka talin doono farxadeyda halkii ayaa guurkeeni ku dhacay waxaan noqday marwo la qabo sida caadadii ahaydna waxaan ahaa raaliyo inta badanna mar walbana jecel in ninkeedii si niyad furnaan ah ay ku soo dhaweyso waxaan ahaa qof gurigeedii xagaagsata qalbi furnaan ninkeedii ku soo dhaweysa farxad gelisa laakiin mar kaliya ayaa waxay tiri ninkii ayaa isbedelay oo waxaan ku arkay muuqaalo aan wejigiisa hore u arki jirin isbedelo aad u tiro badan taana ay sii dheertay habeenkii xilliga dambe inuu yimaado maadaama aniga aan kala kulmay raggii hore ninkii hore dhibaato waxaan go'aansaday in aan soo daahmadiisa wax su'aala aanan ka weydiin markuu yimaadana dhoola cadeen aan ku soo dhaweeyo xaajigayga oo iraahdo soo dhawow gurigaaga ku soo dhawow oo cashadii aan u diyaariyo qubayskii aan u diyaariyo wax kasta oo ninka ragga loo diyaarin lahaana aan halkaas ugu diyaarin jiray kadibse wuxuu bilaabay asaga oo firaashka aan ku wada jiifno qayb ka mida ku jiifo in halkaasi oo kula hadlo qof kaloo dumar ah waliba uu ku yiraahdo erayadii aniga aan xaq u lahaa oo halkaasi ku yiraahdo waliba oo hasaawo ah aan arkayo waan ka dhaga fureysanayay oo hadalladaasi markaan u adkeysan waayana inta baxo ayaan waxaan tigi jiray fadhiga oo halkaas ayaan ku soo ooyin jiray ooyintii markay iga soo dhamaata wajiga ayaan iska soo dhaqi jiray aniga oo dareensiinaynin dhibaatada aan dareemayo amba dhaawac ay gaarayo erayadii markaan xaq u lahaa oo qof dumar ah oo aan xalaashiisa ahayn uu ku leeyahay waan iska aamusi jiray intaas waxaan ka baqaya kaliya in aan eray iraahdo anigana jawaabteeda ay iga noqoto furiin halkii ayaan ku aamusayay waxaan ahaa qof uur leh oo uurkeeduna marayo 4 bilood waxaan isiri hooyada ma noolo aabahana ma noolo cid aad ciirsanaysana ma lahan saddex u badan hore ayaad u wadatay haddii aad maanta qaylo samaysane waxay noqonaysaa in ninkaan uu ku furo waxaan dareemay tiri nin go'aan soo gaaray inuu yahay kaliya iga baarbaarayo inaan mar kaliya xanaaqo halkaasna oo ku helo daldalool aan ku wada buuqno halkaasna oo igu dalaaqo waxaan soo go'aansaday in aan adkaysto samro ilaahayna tala saarto mar allaala markuu waayay meel uu iga soo maro iyo qaab uu xanaaqayga u kiciyane uu iga aamusay waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah anigoo quraac siiyey oo halkaas iga dhaqaaqay in qoraalka message-ka taleefanka dhawaaqiisa aan maqlay mise taleefankii haddii aan fiiriyay qoraalkii inuu yahay anigoo hebel ah in aan ka furanahay ninkii i qabay oo waliba taleefankiisa oo message-kaas iga soo qoray waxay tiri waan naxay oo waan suuxay halkii ayaana biyo lagu shubay markii aan soo naxayna waxaan dib u fiiriyay waliba message-kii aniga oo mararka qaar moodaba in ay tahay riyo ugu dambeyn waxaan xaqiiqsaday inay tahay run ninkaana oo sida ugu furay kadib waxaan go'aansaday in aan taleefanka ka waco laakiin nasiib darro taleefan si kasta u waco oo iga qaban waayo waxaa dhacday 9 bilood isugiisii ayaa dhamaystay oo waxaa la geeyay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalo magaalada tan kadibse waxaa dhacday si kasta ay noqoto in aan ubadkii fool dhamaystay haddana aan dhali waayo kadibse dhakhtarkii wuxuu go'aansaday in halkaasi si degdeg ah qolka qaliinka la geliyo halkaasna operation lagu sameeyo qalin ayaa lagu sameeyay ilaahayse wuxuu siiyay ubad nool oo caafimaad qabo waliba hal maahane wuxuu halkaasi ilaahay ugu siiyay 2 mataana ah ma sha Allah laakiin isbitaalkii ayaan ka soo baxay aniga oo aan haysan garab aan cuskado ama guriga igeeyo oo dadyoogii halkii jaarka aan ku ahayn ayaa ii soo gurmaday dibna waxay igu celiyeen gurigii aan ku noolaa kadibse waxaan bilaabay in aan ku dacweeyo familka aabahaasi caruurta dhalay oo aan ku iraahdo labadan ubadka ay mataanaha ayaan u dhalay waxayna u baahan yihiin waxay tahay nolol iyo bil
ninkan waxaan rabaa in biilkii xaqa lagu lahaa ubadkiisa caanihiisa in uu soo dhiibto wuxuuse ku soo jawaabay ninkii haddii ay korsan kartana ha korsato haddii ay korsan karina ha ay siiso waxay tiri hooyo ayaan ahay halkii ay ka soo baxeen weli waa nabar oo ma bogsoonin sidee suurtagal ku tahay marka ubad aan hadda dhalay ee u baahan naas nuujin inaan halkaasi ku dayaco oo aan ku siiyo aabahood haddii uu garan waayo mas'uuliyaddii uu ilaahay saaray ee xaqa aabanimo anigu ma rabo inaan dayaco xaqa hooyanimo ee ugu leeyihiin ubadku ilaahay igu deeqay daawadayaal waxay idinka codsanaysaa hooyadaas Soomaaliyeed in aad u soo duceysaan waxa maalmo fara ku tirisa ka dhiman tahay bisha barakeysan ee Ramadaan in uu ilaahay marka hore qalbiga u qaboojiyo ilaahayna garab galo ubadkaasna la koriyo aaminta qaybaha committee ayaan rajeynayaa inaad halkaasi ugu soo qori doontaan ilaahay waxaan ka baryayaa hooyadaasi Soomaaliyeed in uu ilaahay caawiyo hooyo kasta oo sidaan oo kale u dhibaataysan ilaahay waxaan ka rajeynaynaa in uu caawiyo ilaahayna waan ka baryaynaa waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan haddaad nagu cusub tihiin channelkeena Lucky Family-na waxaan ku leenahay nagu soo biir oo subscribe inoo saar muuqaalkana like saar asxaabtaada la share garay muuqaalkan kan xiga soo nabad ahaada